حبيبي معنا عمرك أروح معاك وتدفلي تايو إلهي أمركيس أيها واحد ترفليني ماذا إذا أنا وأنها نفرتكو هيا laakiin geesiniman iska raadinaya la gaaray markaas ayaa waxa la ii sheegay tiraahday wiilashii aan caayay mid kamid ah in uu banaanka ii taagan yahay Assalamu alaykum guys waa anigii oo maanta taagan maanta kaliya la soo qabto surka liib soo dhagay waxa la yiraahdaa walaal macaan ma laga ma yeelayo aan qisa waxa la soo diray leeyo yiri waa in aan akhridaa maanta sheeko ka shidan tahay qisada adduunka noo haya waxaan noo soo diray gabar waxay leedahay magacaygu waa okay magaceedu way ka gaabsatay waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso aniga hadda ka hor igu dhacday waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah waxaan dhiganayay iskuul la yiraahdo ka af Soomaaliga sida loo qoro kale aniga kama helin balaakiin waxay leedahay waxaan dhiganayay iskuul ku yaalo Tareedisho magaciisana la yiraa Imam Malik waa wara iskuulka sanad dhigi jiray be say wax u diimacna okay Imam Malik maalin ayaa waxa dhacday in anigoo galaaska ku jiro macallinkana cashar bixinayo daaqada ama windowga si qof walba u yaqaanaba koox dhalinyaro ah ay soo marto kadibna ay nafoodayaan galaaskii iyo macallinkii wixii casharka dhigayaba kadibna aan iscelin waayo ee tir macnaha foodadoodii iyo caayadoodii wixii naga sheegaa macnaha dhalinyaro markii la yahay dan iskuulkaas waan dhiga jiray iskuulka meesha ku yaalo luuqiyadooda luuqiyaa maro kadibna aan xaatay luuqiyadaasna waa adigu sida wada camal waaye dadku way maraan way sii maraan ay kasoo baxaan xaafado adigu loo isku kala goosho waa luuqiyo la leeyahay kaas xaafadda anigu waan joogi jiray Tareedisho markii qaxi wixii laga yimid markaas waxay leedahay qoftaanu kadib waan iscelin waayay tiri wiilashiina waan foodeeyay okay wiilashiina waan caayay oo waan ku xanaaqay fulaynimadeydana ay tiri wala la qorxay maanta xabiibi macna marka roo macaa ku dad fulay taayo ilaahay markiis ayaa waxay tiri fulaynimadeydana wanaha nafarta ku hayaa laakiin geesiniman iska raadinayay iska baaraasir waa isla meeshii gacan la yaab gabaray adoo fulay marka hor maxaa kood macna meesha iskuulku macallinka soo ma joogin galaaska midada kale wiilo soo ma buuxaan gabdho soo ma joogan adiga maxaa go'ay macna waligii tan kala baaray okay galaasyadii ayaan qaatay waxa la gaaray xilligii iskuulka laga bixi lahaa oo waqtiga dhamaaday iskuulka xilliga adigu markii subaxii hal saac la galo kale adigu wuxuu dhamaan jiray ilaa iyo maxaa la hayay 12 meelaas ama 1 xaafada joogaysa koos waqtiga dhamaaday bad iskuulka la dhiganay xilligan bixi lahaa la gaaray markaas ayaa waxa la ii sheegay tiraahday wiilashii aan caayay mid kamid ah in uu banaanka ii taagan yahay waxa waqti jiray ka hari waysay waa ku haystaa macnaha gabadha ayadoo fulay marka hore maxaa wala macaan aniga dhiigay u karine adoo fulaya maxaa marka hore ku geeyay boodana waa nin adiguna naaga tahay bal maxaa nin foodiis ugu geeyay ma soo fadhiisatay walaal thank you dadka iska dhaad fulaya ba tahay hadana geesi ma batid midada kala dad la dheerayaal adigu inta ku soo baxan kula dagaalamay kala horay marka maxaa ku ilaahay markiis marka waxay tiraahdaa waxa la ii sheegay wiilashii aan caayay mid kamid inuu banaanka ii taagan yahay oo leeyahay macnaha gabadhan hadaan daayo aan ilka ku cun waayo madax inta uga qalas kala jabin waan dhaarta adduunka banaanka la fadhiya naxdinay tiraahday beerka ayaa la ii dhaafay macnaha marka raaxaad adoo fulay wax iyo boorta wax ii caay ku yar dad iga dhici ku yiri naxdinay beerka la ii dhaafay waxaan sameeyay aqoon waayay wallahi soo farqafiya waxaan sameeyay aqoon waayay gabdhaha aan asxaabta aan nahay ayaan ku iri waxay tiraahday walaalo inta u tagtid waa gabdhaha asxaabtana oo isku dhownaay waxay tiraahday ku tiraahday inta u tagtiin waxa ku tiraahday macnaha war gabadha iska dhaaf way ka yar tahay macnaha wana gabar nin raga ilaahay ka dhigay inta soo sanata adigu maxaa la dhahay waxay ahaatay adigu
gabar nina ilaahay ka dhigay macnaha maxaa ku daba dhigay gabadhan wixii mar hore ba ahaayeen galaaska koobaad u baahay waqtigina waa la soo dhaafay xilli hadartan waxa la maroyaaba gabarsi ilaa inta macnaha qofka maxaa ka suganaysa orod walaal macaano uu diiday markuu diiday wuxuu yiraahdaa naagtan daan qabto waa dil waxa leeyahay gabadha iska dhaaf midda kale waqtiga ku soo caynaysay mar hore ahayd aan hadda ma ahan marka waxa leeyahay walaal macaano maxaa adiga seega camal ay ka tahay marka wuxuu yiraahday in xataa ragaan ilaahay ka dhigay gabar lama waxismin kartid faraha ka qaado lagu baraar maxaa adiga kaasi marka xariifkan uu isadkeeyay uu diiday naagta inaan garaaco jirto yiri seeba aniga saas ay dhigi kartaa waa loo soo noqdo qoftii waxa lagu yiraahday walaal uu diidan yahay amal xariifkan aday ku taala macnaa ada waxay saada sameeyay tiraaday mar labaad ayaan u diray meesha waxa ku qoran in leeyahay mar labaad ayaan u diray markaan u diray waxaan ku yiraahday tira walaalayaal oo mar kale igu noqda aniga saas kama wadin macnaa adiga inta u tagtiin ku dhaha gabadhan macnaa hore walaal macaan waxa waa gabar ka xisho oo tago oo wiilasha meesha u biirsado ninka iga dhiciya marka waxay tiraahday intay maqnaayeenna oo markii aan labaadan diray ma sugnay tiro orod daaqadan ka bixi tir daaqada horta astaghfirullah daaqadan ka bixi tiraaday saan u ordayay daaqadan ka baxay orodkan jabsadayna waxaan ku tagay tiraaday xaafadeedii orod bilaa bareega macnaha waa orodka say u bilowday ma wajoojinba ka taxaday way fakad walaal macana noo weeyamse horta fuleynimadu waa wax jiro anigana aad arkaysaan macnaha xeetay markii yaraantii loo baxo ama xilliyadii loo baxo xeetay dugsiga ama iskuulka ana horta fulay number 1 ahaa laakiin wax mid daasan jirmaano baana la soo garaaci jiray qashdhac dhicil fiican markay soo garaacda gacanta ka jajafan jir thank you waa maasan daaba ilaa dadii la tiraahdo wala iska dhici kara ilaa abayo thank you waxa kale jirta xaafadan deganaan jiray in xeetay oo adeerkay deganaa xaafada xamar jidid inta taqaado guriga iga soo harbaxo ban albaabkiisu furayaa arkaa damaan talaq madaxa la gelin fulani wadartadii gabara ka car wiil iyo gabar iyo balaay iyo xayna siida orjir dagaalka ay raadsan jir anoo ka farbaxsan jir marka way jirtaa fulani wadartadii gabara ka car wiil iyo gabar iyo balaay iyo xayna siida orjir dagaalka ay raadsan jir anoo ka farbaxsan jir marka way jirtaa fulay ina tahay macnaha qofka fuligan waxa lagu yaqaan inuu qofka ka caro adoo waxa tahay fuliga adduunka ugu qatarsaado fulay hadana waxaad rabtaa inaad dansato ninka weyn walaalahay macaanay saaxibka guys maanta sheekadaas soo qabtay wallahi iga qosday gabadha fulay waxa ku aqoon jiray fulay aamusano madaxadii laga kubiyo xataa inta iska jafo iska baxo xarifta waxay taagan tahay waa xayay kadibna daaqada ka fog macnaha marka waxa ku geeyay marka guys maanta sheekadaana soo qabtay waa la soo qabtay xariir sheekadaana nala soo diray email ana loogu soo diray halka sheekada la wadaagay ilaa iyo waxaan hayaa 3 ilaa iyo 4 sheeko haya in xeehatay ilaa iyo hadda 3 haya oo sheekadan 4 ku tahay marka sheekadaana hadda ka soo gaarsiiyay guys by email la igu soo diray inshallah guys intaan kamid inta ku kulmi doono sheekooyinka sheekooyin la 3 ilaa 4 haya marka waa kaasa guys intaan tan mid la mid ku kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo ma sha Allah wariye isku bedelanay bye guys see you next time asalaamu calaykum ma doonaysaa guri iiba iyo dhul iiba shirkadda loo yaqaano Balasan Real Estate oo ah shirkad wadaniya ayaa waxa ay ku haysaa guryaha iibka iyo dhulka iibka shirkaddan waxay kaloo ku iibi kartaa gurigaaga iyo dhulkaaga sidaa daraaddeed shirkaddan waxa ay xarumo ku leedahay Hargeysa Muqdisho iyo waddanka Mareykanka waxaanaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada ku yaala